jaaliyal waxay la tahay maalinta tan weyn looma baahna inaynu mar walba isu sheegno sidii ay ku bilaabatay iyo wixii dhaliyay waxay la tahay macruuf inay tahay oo ama kalkii hore aynu sheegnay ama meelo badan lagu qoray taasuna ay ku filan tahay taariikheynteeda laakiin waxaan doonayaa inaanu ka gaaro mid haweenku adduunku maxay heerka ay ka joogaan iyo qiimaha ay ku leeyihiin adduunka waa maxay maxayse adduunka dhismadiisii maxay ka qabteen oo ka soo tareen waxaan isleeyahay taas iyada nafteedu ninkii aan isdhegatiraynin ama aan muraad gumaysiya aan lahayno inuusan u baahnayn faallo badan iyadana in laga baxsho ilaa xaawiya ka aadan maalintii la abuuray haweenta iyo ninku waxay ahaayeen laba marnaba aan kala maarmaynin waxaase ayaan darro ahayd mabaadi'aha qaarkeeda amaba ayaan darro mabaadi'aha qaarkood oo khaasa kuwa loogu yeero raasamaaliga ama xoolo qabeenka loogu yeero in ay sida ay gumaysi badan ba ugu dhaqmaaniin inay haweenka ku tilmaameen dad u baahan in lagu isticmaalo gurigana ay joogaan lana dhowr sida alaabta fiican oo aqalka la dhigto oo kaleeto inay qiimo noocaas u yeelaan iyagoo u diidaya qiimihii aadaminimada oo qofku islahaa oo aan ka hooseyn karin midka ninku is leeyahay ka yaani taasu waxay u socotaa gumaysiga faraha badan leh oo dadka aadamiga dhaxyaal khaasa dhaxyaala adduunka raasamaaliga lagu sheego oo matalan siyaalihi uu ku fadhiyay haddaynu tirino ay aad u badan tahay maxaa kamida matalan oo haweenka garab yaala oo xaqir iyo xuquuqdii intaba ku dhaca waxaa kamida inagu Soomaalida gudaheena balada eedig iyo Afrikaanka ana daado kuwii iyagu inay yiraahdaan ilbaxa iyo aqoonta iyo ya naga timid kuwa yiraahdaan oo la yiraahdo horay waxaynu anaga nafteena Afrika u gumaysan jiray imisaabay kala sooceen waxay yiraahdeen qof waa gob bay yiraahdeen qof waxay yiraahdeen markaa darteed isaga waxay ku tilmaamaan dhigoodu waxa weeye sida buluug oo kale kuwa gobta macnaheedu waxa weeye kuwa gunta ana oo ay xaqirayaan dhigoodu waa midab kale macasa sida dadka aadamiga dhigiisu wada casiyay iyo ka been sheegay yani waxyaalahaas ku tilmaamaan waxay yimaadaan nooc kaleeto oo la yiraahdo xoolo qabeen taajiriin magacooda la yiraahdo oo iyaguna kala sare heer saraca waxay yimaadaan dad la yiraahdo shaqaale iyagu ma yiraahdaan ay yiraahdaan heerka dhexe oo loogu yeero dhaqaatiirta ofsarada funcionariga waaweyn waxa noocaas oo dhan iyagana la yiraahdo heerka dhexe waxa la kaxeeyaba waxa la geeyaa ilaa shaqaalaha la yiraahdo qoladaas waa qoladii xamaaliyaalkii gunta ahay ka yaani waxa la mida barbarka kala hadii loo gadiyo rag iyo haweenku heerarka iyo magacyada loo kala bixiyo haweenku saan u sheegay waxa la yiraahdaa mid kastaba ha ahaatee inay tahay qof yaani fiican oo laakiin ku fiican aqalka inay joogto ku fiican markii ma garanaysaa raaxays la doonayo in loo yeerto ku fiican hadalla macaan inay tiraahdo ku fiican marka micnuhu xageebu u dhutinaya يعني wuxuu u dhutinaya in marka ay jiraan dabaqado aadamigi dabaqado loo yeelo mid sare mid hoose mid sare mid dhexe mid hoose iyo mid aan isaga laba soo qaadin laakiin lagu xamaasho dhigiisana la xabo shaqadiisana xoolo ahaan loo qaato sanxadiisa xoolo ahaan loo qaato maskaxdiisa xoolo ahaan loo qaato aadaminimadiisu ay ku dhisaalaysan tahay inuu u adeego kuwa sare kaliya marka haweenku kaabay la xeeriyeen maxaa kacaanka maanta ama maanta maalinta aynu siyaaranayna maxay marka ku micnaysan tahay waxay ku micnaysan tahay markii hawliyaanti wadaaga ay dhalatay markaas bay waxay ku dhalatay mabda la yiraahdo dadka aadamigu way isku midka adoonka oo shaqaalaha loogu yeeray ama beerleyda loogu yeeray ama laga xoogranayo la gubaystay iyo midka kan sheegan haya xoogii iyo aqoontii iyo muxuu ahaa dhididkiisi wixii isagu iskasbay inta lagu noolaado meel dheer lagu gaayo xoolo lagu helay iyo maalba haddana la yiri waa lagu gumaysanaya ka iyo kii gumaystay labadaba inay sameeyeen
rag iyo haween inay siman yihiin dadka joojin la joojiyo oo la xaqiijiyo oo muran la'aan laga dhigo dadka aadamigu inay isku xaq yihiin horta xaalku meesha usla socda ka weeye waxaan jeclaan lahaa dumar haddaad tihiin dumarka Soomaaliyeed inaad fahamtaan yani mid uu iska yimid ma aha waxa wata hanti wadaaga wata raas maaligu ma wato rag iyo dumarka waxa uu ku wataana waxa weeye fariisin xuquuqda aadamigu inay isku mid tahay waxa isdheeriyayna inay jirin hadii marka la fatasho sanxahan loo fatasho cilmi ahaan loo baaro qof walba waa inta Ilaahay gashaa aqligiisu rag iyo haween isku mid weeyaan waxaad helaysaa naag doqonaad helaysaa waxaad helaysaa nin doqonaad helaysaa waxaad helaysaa naag aqli badan baad helaysaa waxaad helaysaa nin aqli badan baad helaysaa waxaad helaysaa mid iska dhexdhexaada oo Allahumma la beegiska rag iyo naagaba yaad helaysaa waxaad helaysaa mid nin adkaysi badan baad helaysaa waxaad helaysaa gabar adkaysi badan baad helaysaa waxaad helaysaa qof hawlkar ah oo ragaad helaysaa waxaad helaysaa qof hawlkar ah oo haween baad helaysaa waxaad halkaysaa geesi haweenaad helaysaa waxaad helaysaa geesi ninaad helaysaa waxaad helaysaa furay haweenaad helaysaa waxaad helaysaa furay ninaad helaysaa soo noqdo annaga sidaas bay noogu muuqataa annagu bilaabi maynay hanti wadaag oo dhan bay ugu muuqatay waxay ugu muuqataa intii ogol xuquuqul insaanku inuu mid yahay usan midab kala lahayn usan ku muuqanin rag iyo haween usan ku muuqanin midab yani dadku ay leeyihiin u dhasheen usan ku muuqan dhar usqabo usan ku muuqan wax kaleeto ee uu ku muuqdo aadaminimada markii meel laga saro gidigood dhiigood uu cas yahay oo dhiig guduudan ama cas uu ka imaanayo garashada ay garanayaan xumaanta sida ay u garanayaan samaanta garashada ay waxtarka ay leeyihiin sida qof kastaaba rag iyo haweenba uu u leeyahay qof walba inuu waxna tari karo waxna dhimi karo qirida ah iyo la socdaa taa oo ku fadhida aadaminimada guudka ah iyo sinaanta iyo cadaaladda adduunka dadka hanti wadaagu ay la doonayaan ama aaminsanay la doonayaan jaallayaal haddaan gudaheena usoo noqono imisa gumaysi baa jira haweenka kaliya lama gumaysan jirin maxaa la gumaysan jiray oo kaleeto oo dalkeena yaalay miyaan gumaysi loogu gabanaynin markii qabyaalada lagu shaqaynayay miyaan dadkeena qaarkiis la oranin waxay u dhasheen gunnimo abtirsiyo inta la daba galo gunnimo inay u dhasheen lagu cadayn karaana wax markii la fatasho waxaan jirin miyay noqonin miyayan soo soconin xoogaa oo markii kor loo soo qaaday dadkii cadadkoodu xoogaa yar yahay miyaan la ogolaysin inay iyaguna gun yihiin